runtii maanta waa isku imaadkan ama kulankan ahmiyad gaar ah ayuu u leeyahay shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Saal la socotaan sanadkan sanad adag ayuu ahaa ee soo maray dalka gaar ahaan xagga cimilada haddii ahaan lahayd roob yarida haddii ahaan lahayd roobabkii oo meelaha qaarkood zaid u yimid haddii ahaan lahayd covid-ka iyo haddii ahaan lahayd khilaafaadka siyaasiga ee ka jira dalka. arrimahaas oo dhammaan isbiirsaday waxay caqabad ku yihiin dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ee dalka gaar ahaan dadka ku nool gobollada iyo meelaha kala fog ee dalka. roobkii oo aad u yaraa waxaa weheliyey 50% of humanitariankii oo ayna siin jireen wadamada deeq-bixiyaasha donorska ahaa oo 50% hoos u dhacay keenayna in la gaarsiin waayey loona qorsheyn waayey sida loogu talagalay in la gaarsiiyo dadkii baahidaas qabay. saa darteed waxaan rabaa halkaan ka sheegayaa maantay in loo soo gurmado shacabka Soomaaliyeed oo ay asiibayso dhibka uu geystay climate change-ga iyo roob yarida iyo raashin yarida ku dhacday dalagadii iyo wax soo saarkoodii. saad la socotaan xilligan oo kale October, November iyo December roobab inay da'aan ayay ahayd. roobabkii madiin oo aad ayay gobollada qaarkood u yar yihiin. waxaa kaloo ku xiga xilligii jiilaalka ahaa oo bilaabanayay January, February iyo March oo ah xilli aad dry u ah kulul oo jiilaal ah. shantaas bilood oo hadda inoo bilaabatay dalka roob la'aan iyo raashin la'aan ayaa isugu darsoomayso. haddaanan hadda abiil aanan u qaadanna dadkii macluusha ayaa soo noqonayso. saa darteed ma rabna inay soo noqoto feminkii dhacay 2011 ama 2011. shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay marka hore ilaahay inaan tabakalno. ilaahay ayaa ah gacan bixiyaha saacidaha ugu weyn ee ummad dadkiisa wax siiya. biyo sacbahaga looga dhargaa inaan annagana tashanno oo isku tashanno aan annaga waxaysi siino waa number 1. annaga haddaan isku tashanina cid kale wax kastoo ina siisanamooda deeqayso. sidoo kalena waxa ay nasiyaan dalalka saaxiibadeena dalalka mucaawinada bixiyo hay'adaha NGO-ga international NGO-ga iyo national NGO-ga iyagana waa gacan aan u baahannahay. iyagana sidoo kale ayaan leeyahay ha loo gurmado dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. fursad ayaan idin siinayaa aad kaga hadashaan dhammaantiin sidii looga hortagi lahaa masiibadaas iyo masiibooyinka soo socdo. bini aadankana wuxuu wax ku yahay inuu qorsheeyo waxyaabaha ku soo socdo si uga hortago dhibkii ay keeni lahaayeen. sida aad u soo abaabusheen waxaan rajaynayaa in aad si diibli ah oo hoose aad u geli doontaan. waxaan rabaa oon hilmaamay in sida ugu dhaqsiyaha badanna loogu gurmado meelihii hore ay ugu bilowdeen abaaraha sida Jubbaland oo mar hore ay ka bilaabatay droughts-ka iyo meelaha hadda ay ku zaaidayaan sida South West, Galmudug, Hirshabeelle iyo Puntland. dhammaan dalkoo dhan wuu u baahan yahay. marka waxaan rajaynayaa in aad ka soo saartaan statement khusaysa arrintaas war saxaafadeed ku wajahan arrintaas. anigana 24 saac 365 waa idin garab taaganahay diyaar ayaan u ahay markasta. waa mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.